haddii Soomaaliya ku guuleysan lahayd dagaalkii 1977 waxay noqon lahayd quwad weyn oo gobolka Geeska Afrika ka talisa. Soomaali weyn oo ah riyo qarniyo soo jirtayna waxay isu bedeli lahayd dhulka dhexdiisa taala. Soomaalidu waxay ku baraari lahayd fursadaha ay soo bandhigayaan midnimada dhexdooda, waxayna bedeli lahaayeen xuduudaha isticmaalka oo ah dood Afrika lagu muquuniyo. Laakiin dhinaca kale waxaa la filan karayay in quwadaha waaweyn ee xilliga sida Mareykanka, Soofiyeedka iyo xulafadoodu aanay aqbali lahayn ogolaana lahayn in awood midaysan oo Soomaaliyeed ka dhalato gobolka Geeska Afrika, taasoo ka dhigi lahayd Soomaaliya bartilmaameed siyaasadeed iyo ciidan mustaqbalka. Haddii Soomaaliya ku guuleysan lahayd dagaalkaas, waxaa dhici lahayd in dhulka Soomaali galbeed ama Ogaadeniya laga xoreeyo Itoobiya lana mideeyo dhulkii Soomaaliyeed oo dhan, taasoo ahayd riyadii Soomaali weyn. Waxaa suuragal noqon lahayd in Itoobiya laga xoreeyo dhulka Soomaaliyana ay hesho dhul ka weyn ka maanta ay haysato. Maabka Soomaaliya ee hadda toddobada u egna wuxuu isu bedeli lahaa qaab fangur buuxda ah oo aan wax faraxna lahayn. Waa tii markii uu Dhoodaan Allaha u naxariistay arkay maabkeenna hadda suu og yahay uu ku gabiyey fangur buuxda sawtii ahayd fanaxda iyo yeelay. Maabka Soomaaliya ee lambar 7 u egna wuxuu isu bedeli lahaa sida aan hadda halkan ka tusayo. Waxaan heli lahayn shidaalka jeexdin iyo ilaale oo ah kheyraadka kaliya ee saliid cayriin ah ee maanta Itoobiya sheegato ama haysato. Guushaasi waxay si weyn u bedeli lahayd juqraafi siyaasadeedka Geeska Afrika. Itoobiya waxay noqon lahayd dal aad u tabar yar maadaama ay waayi lahayd dhul ballaaran iyo dad tiro badan. Soomaaliyana waxay ka shiraacan lahayd doorkeedii hore ee siyaasadda dhaqaalaha iyo awoodda, waxayna isu bedeli lahayd awood ciidan iyo siyaasadeed oo si weyn looga qadariyo gobolka Geeska Afrika. Dagaalkii 77 wuxuu dhacay xilli uu socday dagaalkii qabooba ee loo yaqaanay Cold War, markaas oo Mareykanka iyo Midowgii Soofiyeeti USSR ay ku loolamayeen Afrika. Haddii Soomaaliya guushu raaci lahayd, waxaa dhici lahayd in Mareykanka iyo xulafadiisu si weyn ugu soo dhawaadaan cilaaqaad oo la yeeshaan Soomaaliya, halka Itoobiya loo arki lahaa dal guul daraystay oo ka baxay miiska awoodda gobolka. Waxaa kale oo dhici lahayd in Midowga Soofiyeeti uu waayo Geeska Afrika saameyntiisana meesha ay ka baxdo. Sababtu waa in dagaalkaasi oo Soofiyeedku si toos ah ugu taageeray Itoobiya. Guusha dalkeenna waxay u badan tahay inay kor u qaadi lahayd kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo midnimadooda. Waxay u egtahay in laga baaqsan lahaa fursadii ay heleen jamhadihii qaswadayaasha ahaa ee ku kacay dowladeennii dhexe, kuwaas oo ugu dambeyn qarankeena ka dhigay sida uu maanta u egyahay. Guuldarrada ciidanka Soomaaliyeed kaga dhacday gacanta xoogagii Kuuba iyo Itoobiya intii uu socday dagaalkii Ogaadeniya ee 1977 ilaa 78 waxay bannaanka soo dhigtay mucaaradad ku dhex jirtay ciidanka qalabka sida. Cawaaqib kale oo culus oo dagaalka ka dhashay ayaa ahayd qulqul qaxooti oo baaxad weyn, kuwaasoo ka soo qaxayay dhulka Soomaali galbeed soona gelayay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Tira ahaana lagu qiyaasay in ka badan 1 milyan oo ruux. Qaxaas iyo barakacaasna waa laga baaqsan lahaa. Dadka deegaanka Soomaaliduna waxay ku nagaan lahaayeen dhulkooda. Dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo marxuumka laftigiisu waxay heli lahaayeen sumcad iyo sharaf weyn. Shacabka ayaa taageero buuxda siin lahaa, wuxuuna magaca Siyaad Barre isu bedeli lahaa halyeey xornimo doonnimo ku salaysan oo la meeqaama Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, maadaama uu xoreeyay dhul dhan oo Soomaalida gacanteeda ka maqnaa. Horumar dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa laga yaabaa inuu jiri lahaa maadaama dowladdu awood ciidan iyo mid siyaasadeed yeelan lahayd. Si kastaba, waxaa suuragal ahaan lahayd in xoog iyo awood badan ay Soomaalidu hesho. Inkasta oo guusha dagaalka ka dhalan lahayd u muuqan lahayd mid aad u weyn, haddana waxaa jiri lahaa caqabado kale oo guusha hareer socda ama daba socda. Waa caqabada koowaad ee Itoobiya oo ah dal aad u weyn ayaa laga yaabi lahaa inay mar kale soo rogaal celiso dibna u bilowdo dagaal muddo kadib sii socon lahaa. Qowmiyadaha kale ee Itoobiya ayaa laga yaabaa inay kacdoon sameyn lahaayeen, taasoo Geeska Afrika ka dhigi lahayd goob dagaal oo joogta ah. Dalka Eritrea oo xornimo ka qaatay Itoobiya 1991 ayaa xornimadiisa xilliga ka hor inuu helo ay suurtagal ahayd. Reer galbeedka iyo quwadaha waaweyn marna ma doonayn in Soomaaliya noqoto dal aad u xoog badan oo ka arrimin kara marinbiyoodka Baab al-Mandab iyo Badda Cas. Sidaa darteed, waxaa suuragal ahaan lahayd in cadaadiska shisheeyuhu sii xoogaysto. Guusha Soomaaliya waxay ahayd mid suurtagal ah
oo ku xidhan xoogageeda military. Guushaasina waxay keeni lahayd Soomaali weyn oo mida xooggan oo isku tashatay, laakiin waxay kaloo keeni lahayd dhibaatooyin cusub oo ku saabsan maamulka, xiriirka caalamiga iyo isku xirnaanta gobolka. Waxay kaloo waxyeello weyn ku ridi lahayd Ethiopia, taasoo suurtagal ahayd inay dhaqaale ahaan, cudud ahaan iyo ciidan ahaanba burburto. Taariikhda dagaaladaasi waxay ahaayeen silsilado isku xidhan oo ka dhashay dhulboobkii ay Ethiopia ku kacday markii lagu jiray qaybsiga qaaradda Afrika, oo ay iyaduna kaga qayb gashay inay qaadato gobolka Soomaali galbeed. Waxaan ahay Muxyidiin Cabdi oo aad kala socotaan juqraafiye. Haddaad nagu cusub tahay, fadlan page-ka subscribe sar.